qalbigaaga ayay jebinayaan, waxay kaga tegayaan sabab la'aan. Waxaad ka dooratay dadka oo dhan, waxaad aamintay in badan, waxaad u ahayd daacad, waxaad u hurtay naftaada, waxaad u samaysay wax walba oo aad awooday, laakiin wax kale iyo meel kale ayaa u muuqatay. Markasta waxaa kugu soo haraya su'aalo u garaacaya maskaxdaada sida mawjado bad oo buuro ku dhacaya. Markasta waxaad isweydiinaysaa, maxaan sameeyaa, ma isku filanahay, sideen u iloobaa? Tan ogsoonow, waad isku filan tahay, waadna ku saxnayd inaadan naftaada u qiyaamin qof aan kala saari karin quruxda rasmiga ah iyo midda khiyaaliga ah, oo aanan kala garan karin wanaagga iyo xumaanta. Wax dhalanteed ah mooday wax dhab ah. Marna ha u ciqaabin nafsadaada qaladaad qof kale sameeyey. Ha u baabi'in noloshaada qof aysan ka go'nayn inuu kula wadaago dhib iyo dheefba. Xusuusnow, waad ka bogsanaysaa xanuunkan, waadna hilmaamaysaa waxaad soo martay. Waxaad baratay cashar weyn, waxaad tahay waayo arag. Sameey wixii wanaag ah, xoogga saar wixii naftaada horumar u horseedi kara. Isku mashquuli wixii sax ah, kana faa'iidayso fursad kasta. Ha furnaado qalbigaaga, ku ducayso beddel khayr qaba in Alle ku siiyo. Cafi una duceey. Marna ha ku fikirin inaad xumayso ama aad aarsato. Ogow, waxaad is-aaminteen xilli aad isku dhoweydeen. Ma lagu jebin karo haddii aadan adigu isdhiibin ama aadan dhulka isdhigin. Ogow, hadda dhaawac ayaa tahay, laakiin kuma aysan dhammaanin. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena. Mahadsanid.